السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسر هذا برنامج كوي عرق أتكلم سعطان إنتي حرمتي لندن خميستا يو سنين تاي سلاسة برنامج كان آلا بوحان كسوق هذانا قضب آداد وحيسين إنسان كويس لنا هاي وحبي أتكفى ريسن كريسان هل كانوا حنسوف ريسنا دات كلا دوان أقوي هنا كلا دوان أنت لأن هاي وحي أفادي كران ومد الصوماليات ويارك وبرنامج كينو وين هدي أدوني سامرك ويارك نتقيب قادتان إيميل كسيدا وريغاني وسوغي @sntv.gov.so أيات صدري كرتان هدي كلا تليفون وصدري هداد ميلاها كدوديهين UK هداد نوتي مادان إديكو سعيد كبر في عمبا وفائدي ومدينة ووقتي أين سو فائدي سلهين أين وحوضة قبص لهين أين هل كان أمد يعني كوعي قل لهين أو حيالا بدنا كبر لهين برنامج كويارك وحمرتين وقا ما أنت يعني أقويهن diiday inuu aan sheego darajooyinkiisa uu yiri magacayga la igu wacd saasaan jeclahay aniga rufday saasaan jeclahay qofka aan magaciisa ugu wacan jeclahay hase yeeshee laakiin waxa la yiraahdaa Sabriye Macalin Muuse waxaan rabaa daawadayaashina u sheego Sabriye Macalin Muuse waxa uu nooga yimid dalka Mareykanka uu nooga yimid gobolka Minnesota ayuu nooga yimid Minnesota sidii loo yaqaan USA magaalada madaxda Minneapolis Soma saas uu nooga yimid oo nagu soo booqday barnaamijka wayaarkii barnaamijyada SNTV ayuu haday igaga sheekeynay wuxuu yiri aad baa looga daawadaa America USA gaar ahaan wuxuu yiri marka boqosyo yaalo marka ugu horeeyay SNTV ku jiro marka labaad waxa soo baxay oo kullee hebel barnaamijka noocaas oo kale waa tahay caawa marka waxaan idinku haynaa waxyaabo aad u xiibsan doontaan yani mowduucyo aad u xiibsan doontaan ayuu halkan aqoonyahan Sabriye Macalin Muuse oo inagu soo jeedin doona ugu horeyntii horta intayna kulli barnaamijyada waxaan jeclaan lahay inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka wayaarka SNTV London waa kana waa fadhisaa Macalin Muuse ku soo dhaweeyo Sabriye ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. marka hore waa mahadsantahay Professor Wasuge aad iyo aad u mahadsantahay si diirnada ii soo dhaweysay sidoo kale Yusuf Garabey soo saaraha barnaamijka aad iyo aad u mahadsantihiin waa salaamaya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan idinku soo booqdo markii iigu horeysay Minnesota ka imid TV-gan sidaad sheegtayba number 0 ku jira remote-ka marka la daaraba SNTV soo gala Universal iyo Somali Channel iyo sidaas isu haystaan boqosyo badan la haystaa cid walba waa daawataa marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta idinka soo qayb galo barnaamijka واتهاي سبرية معلن موسى واتجيسنا إنه نوي مد مال فكبوك هي مد يعني عاد بين أمريكا ده الجوجنا نوي مال أساس وكلام كان قصده وين إنها عندي إسلام وحبات سوكر دكتور وحصوبرتي رنتي بيرها عراق أي كصوبرتي BSc بوهستا لكن بيرها كم وصلنا كان السودان بوتك هذا MSc بوقاطي أو يعني علم بيرها يصوبرتي أو يعني كصو تقصصي هاسي شيء بل وحنا رنا مانتا أنت أينو يعني قالين لبابوك ودوني هالكان إنه كسو بندقو وهري وقري يقول لك اللي يراهدو راحة جوركا إيوه بربارين تا أوبتكا أنت أينو قالين كور لباس بوك ديار أصي النقطة أنت أينو مركز فلانقين تبوك تاسي هذا الكاسي إيو قراجة هير كاسي إيو أقويان كان واحد كاس قارسي كور وحن جنان الله هاي برهرت إنه ويا أرق ويا برنامج كان ويا أرق اللي يروح يلبن بيقش كي هدايا هذا ونجع الله بل إيه نوجا ورن يعني أنت بعد سكندري قاعدي حوجا سيد وسوق قارت هير كان مركز سكندري كبحر دلك واجي كعان كمش قيسي وحي بربركي مركود على الكيباد يعني تقطي أنت إن اللبض بو كهر يعني قالوا حنجعل الله حوجا إن إسبرتا daawadayaasha sharafta leh kusoo dhawow waa mahadsantahay boqolkiiba boqol horta aniga dugsigii hoose dhexe waxaan uga baxay Maxamuud Warsame Ziyo oo Huruwa ku yaala dufcadayda waxaan ahaa ardaygii koowaad waxaan nasiib u helay inaan galo dugsigii sare Khawdiin qaybka Carabiga asagana waa ka baxay ardaydii ugu sareysan ka mid ahaa waxaan intii aan iskuulka dhiganayay mowduucyada buugaagta aan soo bilowdeen dugsigii sare afka Carabiga waxaan nasiib u helay deeq waxbarasho inaan u aado 89kii dalka Ciraaq dawladii jirta wadanku nabad yahay tuuga wax dhaca uu toorey isticmaalo
cid xabad haysata iyo cid qori haysata aysan jirin. xaalana aan galay 3 xabadood oo risaas aan riday markii dabridkii marka ninka intaa sameeyaba wax weyn ahaaba waagaas marka sidaasaan Soomaaliya uga baxay intii gurmadkii iyo intaan ka bixin inta u dhaxaysan waxaan macallin ka noqday iskuul hoose dhexe af Carabi ahaa oo professor Ahmed Xiji Ahmed Maxamed Wehliye professor Xiji oo maamula ka ahaa oo ku yeelay meel hotel telefoon ka soo horjeeda oo iskuul weyn oo dawladda aqoonsan tahay dugsiga hoose dhexe Carabi waagaas ay bilowdeen oo macallin ka noqotay oo hadhow markii dugsiga dhexe arday ka baxo wasaaradda imtixaan ka qaadayso oo kaasaan macallin ka ahaa marka halkaasaan uga tagay Soomaaliya waqtigaas ay ugu dambeysay dib dambana ugu malaabay 89 ahaa waa tahay dalal badan baad soo martay daaimaraad ii sheekaynaysay bal ka warran ka tagtay halkee baad tagtay waa ilaa iyo wadankaana hadda 12 ku ah 12 dal baad soo martay marka waxay u badan yihiin wadamada Carabta caalamka Carabta meelo badan aan ka tagay waxa iigu badnaa intaan ku noolaa Ciraaq oo 4 sano bachelorti cilmiga beeraha aan ku qaatay iyo Suudaan oo 3 sano masterate aan ku qaatay iyo Qatar oo 9 sano aan deganaa Sacuudigan joogay Masar aan joogay maxaa la yiraahdaa Bahrain iyo Imaaraadka Qatar wadamada Khaliijka Djibouti Ethiopia adigu hadda Mareykan aan ka imid halkan Soomaaliya marka dhul badan aan soo maray waaye badan waa u soo joogay dagaalkii Khaliijka oo 91dii Ciraaq lagu qaaday waa joogay Suudaan waa joogay markii mujrimkii ninkii ugu weynaa adduunka ugu caansanaa Carlos la qabanay markii la qabanayo Suudaan waa joogay Carlos markii la qabanayo waa joogay 94 oo warshadii daawada oo lagu tuhmaayay ninka la raadsanayo waagaas inuu gacan ku leeyahay la garaacayo waxa soo dhan waa joogay marka meelo badan aan soo joogay kuliyadda beeraha Ciraaq marka dhiganaysay Mursal maxay magaalada bacdi Mosul waxaad iga sheekaysay kuliyadda inaad ku cidlooto kaliya ku hartay dadka laga wada cararay dagaaladii markii dhacayeen oo 15 January loo qabtay waxa la yiraahdaa wada hadaladii James Baker iyo Tariq Aziz waxay ahayd bilowgii dhamaanshaha waa la isku afgaran waayay waxa la yiri 15 January wixii ka dambeeyay u diyaar garooba in la idin garaaco marka ardaydu waa la fasaxay aniga keligay kuliyadii aan ku laabtay keligay iyo nin waardiyaha ku noolaa muddo dhowr bilood intii dagaaladii ka dhamaanayeen oo ardayda dib uga soo laabanaysa marka xitaa hadalkii aan xitaa aan dhowr maalmood hadaadan hadlin ama dhowr usbuuc marmar intaan banaanka u soo baxaan hadli jiray si aan codkeyga horta inaan weli hadli karo marka aad ayaan maaragtay waagaas waxaan dhegeysan jiray idaacada Carabiga aan dhegeysan jiray iyo raadiyo yaraan haystay iyo bateriyaal maalin waxaan xasuustaa anoo iska warwareejinayo maba islaahin xitaa BBC ay soo gashay magaalo heesays af Soomaali BBC waa iska ooyay kaliya iska ooyay Allahu waa 91 dagaalkii January 8 iyo 17 habeenkii 18 soo galaysa lagu bilaabay garaacis Ciraaq marka January February March April alos ardadii soo laabatay oo shabtii degtay oo wax walba kala dhamaadeen markaas halkii la ugu yimid ma kaliya jooga maxaad cuna jirto ka warquuda wallahi noloshu ardada boarding ay ahayd ardada waa raashin badan ay haysteen qaar badan markay iga tagayeen xitaa furayaal iyo waxay siyo yirinayo waa ardada Ciraaq gobolada dhan ka yimaada marka guriyaha waa iska buuxeen ma ku dhibtoon alxamdulillah ma ku dhibtoon waa taa Suudaan baad u gudubtay waxaad samaysay MS baas Master of Science samaysay ka waran Suudaan marka Suudaan waa muddo 3 sano aan joogay arday fara badan oo hadda Soomaaliya wax xilal kala duwan ka soo qabataan saaxiibo ahayn oo meesha joogtay nolosha Suudaan waa iska adag tahay waa dad waxbarasho waa dad kuleylkii iyo boorkii iyo malaariyadii iyo korontadii gogo'aysa u sabra waa dad sabar badan reer Suudaan aad iyo aad u sabar badan oo wadani ah oo waxaad arkaysaa nin PhD diyaarinayo malaariya hayso oo matagaha sariirtiisa hoostiisa arday dad aad u sabar badan waay marka waxaan joogay bilowgii 94 ilaa dhamaadkii 96dii Suudaan joogtay 94 oo dhan 95 oo dhan 96 intaasaan joogay Suudaan marka mastereedaan ka soo qaatay cilmiga beeraha gaar ahaan plant breeding oo ah tarbiyeynta iyo barbaarinta dhirta ayaan ku soo qaatay marka waxaad ku noqotay Carabtaad ku noqotay marka Carabtaan ku noqday fursado waxaan raadiyay wadankii Soomaaliya waa burburay fursado waxaan raadinayay shaqo Sacuudiga muddaan joogay meelahaas Imaaraadka iyo Bahrain iyo wixii waa isku transitan ku soo noqday waa soo indhay Qataraan markii dambe
aan si rigli ah u degay oo intaan halkaan imaan muddo 8 ilaa 9 sano ku dhawaadaan deganaa inkastoona takhasuskayga aan ku shaqayn markaan halkaan imaan waxaan ka wadaa Mareykan markaan tagay weli Mareykan inaan joogo aan soo haystaa marka kabacdina Mareykan aan soo guuray Mareykan aan soo degay oo ilaa hadda aan degana Minnesota waa tahay hor inta yaroo iskuuleynta u baxshay hordhaca ah waa loo baahan yahay runtii shaqsiga halkan soo fadhiisanaya xogaa inaynu ogaano maartay gadaal backgroundkiisa dambe iyo halkii uu soo maray oo eernimadiisa waa tahay waxaad qortay 2 buug baad qortay aad baan u xiiseynaya waxaan aad u jeclaaday buugga gaar ahaan raaxada guurkana waa jeclaaday waxbaan ka akhriyay barbaarinta ubadkana isna waa jeclaaday aad baan u jeclaaday qudayda ubadka waxbaan ka barbaarshaa qurba joogta xagga luqadda iyo afka iyo sheekooyinkaba ka waran marka raaxada guurka waxaad qortay 2002 qadar baad joogtay laakiin marad ii sheekaynaysay waxaad tiri wuxuu ka soo jeedaa waagii aad secondary-ga dhigan jirtay buug waxaad akhrisan jirtay kulli waa tagta weeyaan buug waxaad akhrisan jirtay la oran jiray ama la dhihi jiray الحب والزواج ka waran arrintaas wiil saaxiibka oo maxamuud macali cabdi faarax ladana la hijraa wuxuu siiyay buuggaas carabi ku qornaa annaga ardadeena afka carabi wax ku barata waxaan tuhunsanayn inaan xoogaa ardayda hadda waqtigii af Soomaali wax lagu baran jiraan joognay ardayda dugsiga dhexe kaalmaha fiican ka gashaa gali jiray iskuulada sida xisaabaadka badda iskuulada carabta ay gali jireen marka waxaan islahayn xoogaa thaqaafada dheertihiin ardayda af Soomaali wax ku barata oo dhaqan kale iyo buugaag kutubo ku qoran maxaa la yiraahdaa afaf kale aan akhrisanay buuggaas alxub wazawaaj waa jacaylka iyo guurka oon akhriyay Dr. Amiin Ruwayxa nin la yiraahdo qoraa Lubnaaniya aad u isoo jiitay dhaqanka carabta iyo Soomaalidu basically waa wadan islaama wax badan aan carabta wadaagnaa dhaqan ahaan hadii la yiraahdo waxa saddex waxaan ku kala duwanaa anaga carabtu waa midabka iyo luqada iyo meesha aan ku naalo maahane dhaqanka kale oo dhan isaga mid ahna Soomaalidu geela iyo isla weynida iyo qabka iyo gabayga iyo xitaa dadka sida segregationka dhinaca xun markaan fiirino kala sooca iyo xogaa carabtaas aan la wadaagna afrikada kale nalama wadaagto carabtaan la wadaagna marka waxaan isiri buuggan macluumaadka ku jira Soomaalidu waa u baahan yihiin waagaas ay fikradda ugu dhalatay waan haystay carabta markaan tagayna haddana maktabad kasta oo aan tago waa soo iibsan jiray buugaagta asagoo kale ah waa haysan jiray guur wixii lu kula hor carabi ku qoran oo carabi ku qoran soo ururin jirtay waa ururin jiray ilaa waagi dambe fursad aan u helay bal wixii inaan ururiyo oo turxaan bixiyo oo qaab buug ah ka dhigo oo isu geeyo Soomaalida lafteeda waxyaabo badan oo ku saabsan qoraal Soomaaliyeed aan ku dardaray iyo dhaqan Soomaaliyeed iyo si wixii ay moor Soomaali wax cunin kara Soomaalida inay u noqdaan dhaqankii Soomaalida la waafajin karo la waafajin karo iska qormahan moogta marka waxa kugu dhaliyay buuggaas in qorto waagaas ay taad buuggaas ugu horeeyay aan akhriyay buuggaas waxaad ugu magac dartay raaxada guurka maxaa iska horimaad guurka maxaad ugu macdaro weyd meesha ka tiraa waa jeclay title-kaad baa jeclay cinwaanka raaxada guurka waa arki doonaa laakiin ka waran xoogay hordhac ka bixin raaxada guurka waa maxay ma waxaan rabnaa natiijo fiican in guurku bilowgiisa ilaa dhamaadkiisa aad ku dhamayso adiga reerka in si wanaagsan loo raro oo meel fiican la dejiyo guurka sidiisaba waxaan ognahay horta laba qof aa isguursanaysa labada qof waa inay isdoortaan qof walba waa in sifooyin lagu dooran karo uu jiro waxa furo u ah marka diinta islaamku qaabkay u sifaysay waxa lagu doorto wax walba yuhuud waxay dhihi jireen nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xitaa wuxuu idin baray musqusha saa ku gali lahaydeen muslimiinta marka in laga amba qaado qayb nidaamka islaamka marka raaxada guurka waxa waaye nidaamkaas loo dejiyo islaamku u dejiyay iyo dhaqanka fiican marka la isku daro guurkii guur raaxo noqonayo oo loo aayo marka sidii lagu gaari lahaa ayaa ka maqan qaybta hore raaxada guurka markaan leeyahay sidii lagu gaari lahaa guur loo aayo ama lagu raaxaysto waa la soo koobay marka magacii marka wuxuu ku saabsan yahay guur wanaag ku socda ku bilowda kuna socda marka uma adeegin marka reer baadiye magaalo iyo guur magaalo iyo guur balad iyo guur waqti xilli uma yani wuxuu ku salaysan yahay diintii oo asaaska yani saldhig u ah يعني جور وناكسن إيه وضع نواشة نعم
horta afar waxyaabooda gabdhaha marka dhinacooda aan lagu guursadaa waa waxyaabo ku kala duwan yihiin beledka iyo baadiyaha kala duwan yihiin gabadha baadiyaha marka aan uu ku horeyno horta waxaa la fiiriyaa ninka dhalay iyo qoyska ay ka dhalatay qoys wanaagsan oo sharaf leh oo karaamo leh oo magac leh oo tilmaaman oo maamuus leh marka labaad waxaa la fiiriyaa gabadha quruxdeeda quruxdii marka la fiiriyo waa inay gabar qurxan tahay waa inay maaragtay waxaa la fiiriyaa maxaa la yiraahdaa xoolaha haday leedahay dada ku raaca xoolo tan afaraad oo ugu muhiimsan oo ah diinteeda in lagu guursado baadiyaha dhinaca diinta saas looma dadku waa dad shaqo waa dad aan diinta aad uma intii waagii hore on ogaa hadda waa la bartay diintii wax badan laga bartay diintaana saldhig u ah sababtoo quruxdii waa baaba'aysaa qoys xunaa laga yaabaa qof fiican inuu ka dhasho qoys fiicana laga yaabaa qof xun inuu ka dhasho xoolo muhiim ah waa yimaadaan waana tagaan qofka diinta leh marka waa qof yaqaan siduu ilaahay uga baqi lahaa horta markuu ku dhaqayo ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo macnaha wiil ama gabar kuu doono waa baqista ilaahay midda kale adigana waa ku kaalmeynaysaa caruurtaadana diintii ay baraysaa waxaa muhiima soomaalidu inay dad islaama yihiin wiilka dhinaciisa markaan fiirinana laba waxbaa loo gooyo diinta u goyso oo akhlaaqdiisa iyo diintiisa akhlaaqdu waa xitaa waa ka muhiimsan tahay sometimes diinta ninku waa inuu dhaqan fiican akhlaaq fiican uu leeyahay haddii gabadhaanu ay ku xumaato xitaa si wanaagsan uu u furayaa hadduu furaya xitaa hadduu waxyaabaha qaar ay ku xumaatana qaar ay ku wanaagsantu uu fiirinayaa sida diintuba ay fartay sideedu ku haysanayaa marka raaxada iyo maadada ka war raaxada saad u fasirtay buuggan mar ereyga raaxa yani tarjumadaasiisa waa maxay raaxadu waa raaxada qalbiga iyo laabta ma aha raaxo xoolo iyo raaxo maadi ah iyo ma aha waa qofku inuu kalsooni buuxdo qofkan kale ku qabo in uu maaragtay nafsi qof waxaa jira lacag fara badan leh haddana aan reer dhaqan karin qof waxaa jira qurux fara badan leh haddana wadada kusii daysan oo qof waxaa jira marka raaxadu kelmadda waxaan u wadaa waa sidii markab oo dalxiis bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa mutakaamil ah isku wada xiran marka shuruudihii oo dhan marka la helo oo qoyskii dego oo nafsadii u degto oo u qabowdo oo wixii laysku dooran lahaa laysku doorto oo sidii maaragtay lagu dhaqan geli lahaa guri loo furan lahaa wixii oo dhan markay isu yimaadaan raaxadu raaxa waxaa imaanaysaa laabta ah qalbiga ah nafsiyan ah oo guurkaas uu ku nagaado waa deganaan iyo idminaan iyo nasiino saasaan ka wadaa maahane maaha raaxo oo dhaqaale iyo dhaqaale ama sida raaxada loo yaqaan waa soo raaxaystay kuley falkii aan baad dahlay wuxuu maanta waa soo raaxaysanay taas waa mid waqti ku filan waa wax waqti ah laakiin maadi ah maadina ah laakiin tani waa mid soconaysa maalinkiiba la isguursaday ilaa maalinka la kala dhinto soconaysa noloshaas marka sidaas u socoto sidii wanaagsanayd u socota taasaan ula jeedaa raaxada ugaada marka waxaa weeye hal wado ku socdaa raaxadaas oo ah saa hadda qeexday yani deganaanshaha iyo wada isfahamka iyo israbidda iyo iswadadaashaha isxaq dhowrka iyo intaas raaxadaadu marka intaasay la mid tahay marka raaxadaada shaqo kuma le hadda aad adiga cabirayso lacag badan inaad lahaato laba maskiin oo isqabta xataa guurkooda guur raaxalaha bay mararka qaar waxaa dhacda masaakiintuba waxaa dhacda mararka qaar inay nafsiyan ka raaxo badan yihiin dadka lacagta leh waa maqashaan u malaynaa qisadii nin maskiin ahoo iyo naagtiisa oo aada isu jeceloo doqosh yar ku jira iyo nin daar dheer saaranoo maalin walba asaga iyo naagtiisa isku dhegan yihiin maalintii dambe waxay ku tiri war ninkaa maskiinka ah iyo naagtiisa waa isjecel yihiin maxaa anaga nagu dhacay wuxuu yidhi dhowr maalmood iisug marka anaa ku tusaa iyagoo isnaca ninkii u yeeray lacag fara badan uu siiyey wuxuu yidhi intaan maal gasho ninkii wuxuu ku mashquulay marka xoolihii tiyaa la isku qabsaday meeshii kuwii maalintii dambe wuxuu yidhi fiiri ayagoo qaylin ah oo rafaad balaayo ka taagan tahay uu naagtii wuxuu ku yidhi fiiri labadii aad lahayd shalay marka waxaa laga yaabaa xooluhuba inay nicmo meesha ka noqon lahay naqma ay noqdaan oo dhibaato ay ku noqdaan reerka oo ayaga laftooda ay dhib keenaan raaxada laga hadlaa maadi keliya maaha maadadu qeybay ka tahay waa isfaham iyo wada noolaansho iyo dhaqan iyo isxaq dhowr intaas hadii la helo what about aqoonta iyo education maartay waa loo baahan yahay aqoonta muhiim cilmi yani labada qof oo isqaba inay cilmi aqoon leeyihiin dhisan yihiin
waxyaalo badan bay marka ka baaran degayaan Soomaaliya aqoontaas oo dhinac walba ku saabsan waliba diinta dhinaceeda aad muhiim uga ah inay yaqaanaan xuquuqda horta ninku xaaskiisu ay ku leedahay waa inuu yaqaano maxay ku leedahay ayaduna sidoo kale xuquuqda uu ku leeyahay waa inay taqaano waa in ay jiraan wax isku xiraya qofka iyo allihiis iyo qofka ay isqabaan saddexdooda connection ka dhaxeeya ama xiriir ka dhaxeeya inuu jiro waay marka wax walba waa haddaysan aqooni jirin waxa waaye qofku xayawaanka waxa lagu kala saaray iyo bani aadamka waa aqoonta guurka waxa weeyaan waa contract weliba ma aha shirkad xoolo ku saabsan ma aha wax maal ku saabsan waa contract labada qof ku saabsan nafsadooda waa midka ugu adag marka xiriir la gelayo labada qof noloshooda ku saabsan waa mid muqadasa waa mid aad leedahay qofkan aad kula mubaayactoomonayso inaad xaq dhowri doonto inaad maaragtay sidii ilaahay ugu talagalay sababtoo marka la ismeersanayo diina la isku meersadaa waxa muhiim ah marka labada qof nafsadooda ku saabsan yahay wax kas contract kasta oo kale waa ka duwan yahay marka waxaa leedahay sariir qurxan iyo musqul qurxan iyo baabuur iyo waxa iyo raaxada dhinac waa qayb ka mid ah waa furuuc yaryar waa shuruuc yar ka mid ah oo marka la isu geegeeyo raaxadii kaamilka ay keenaysaa raaxada dadku siday hadda u haystaan baabuur modelkii ugu dambeeyay wataa guri wuxuu u dhigay ma aqaan dahab wuxuu u gaday ma aqaan waxaasoo dhan aniga waxaan usoo joogay guurar ay ku baxeen dhowr boqoloo kun oo doolar oo 6 bilood ka bacdi maxkamado iyo sheekadooda ay tagtay raaxadu marka dhinaca dadku ay ka raadinayaan maaha nafsiyan labada qof waa inay itminaan iyo tumaniina iyo xasilnaan iyo kalsooni iyo isqiimeyn iyo isqadarin labada qof haday dhex taalo raaxadu intaas ugu muhiimsan wax yar oo ay haystaan ku filan waa taa laka adiga markaad u bixisay raaxada guurka ma jira kitaab carabiya ku qoran oo yani الراحة الجور لي هذا واحد متعة الحياة الزوجية سوري بكي عربي ما كان الراحة الجور فرانسيسكي وكمل عتاب واسكيري الراحة متعة الحياة الزوجية وهو الراحة نولوشا جورك وساس ها وصحة marka adiga waxaad samaysay tarjuma samaysay waxaad tirmaka raaxada guurka sida ugu haboon ay qaban karto hadalkiina u soo gaabin karo sidaas ay ila noqoto waa nolosha qoyska sida ugu fiican oo raaxada laga hadlaana ugu muhiimsan waa raaxatul qalb raaxa nafsiya waa marka isxaq dhowra furo u ah iyo ixtiraam iyo kala dambeyn inta ku dhamaana buugan marka buugu wuxuu ka soo bilaabanaa doorashada labada qof wax sifooyinka isku dooranayaan oo hadda aan soo magacownay uu ka soo bilaabma doorashadii ka bacdi waalidku waa inay wiil dhowrsan oo akhlaaq leh oo diin leh markuu gabadhooda soo doonto waa inaysan u diidin xadiid waadaxaa jira haddii kale xumaan iyo fasaahada adduunyada ka dhacay waalidka wiilka dhalin sidaas waxyaabahan kale oo soomaalidu ay fiiriyaan oo dhan waa wax ka jira ma laha markii waxaa ku xiga haddana aqalgalkii buuggu wuxuu sharxa qaabkii loo aqalgeli lahaa aqalgalka loo samayn lahaa habeenkii aqalgalka waxyaabihii looga baahnaayo dhan wuxuu sharxayaa markii la aqalgalo kadib nolosha siday ku socon lahayd xuquuqdii iyo waajibaadkii xiriirkii xuquuqdii labada qof ay isku lahaayeen xuquuqdoodii oo dhan ninka xuquuqdii lagu lahaa xuquuqdii gabadha lagu lahaa suu u socdo ilaa ay nafaqayntii qoyska iyo hadde diinta islaamka waxa waaye ninka isxaq dhowrkii iyo isnafaqayntii iyo qoyskan sidii maaragtay waa kaamil mutakaamil waa guurkaas ku saabsan raaxa ka dhalanay marka raaxa kaamil ah ergaas wuxuu daday marka waa tahay haday wax ku harin buug labaad noo dhiman oo barbaarinta ubadka isagana aad ugu magac dartay waxaan jeclaan lahaa in halka hadii aad wax yar aan ku siinay wadaad faahfaahinayso isleedahay waxbaan ka tagnay raaxada guurka waa mawduuc aad u ballaaran runtii raaxada guurka hadaynu yani waa kala qaadqaadayna maanta hadaynu raacnaa beritaan saan u fadhinayna habeenna masaanan u fadhinaynaa misleeda waxbaad ka tagtay buugga raaxada guurka buugga horta 2002 aan daabacay qadaraan ku daabacay waxaan isleeyahay horta qof kastoo wax qoraa wuxuu isleeyahay kan haddaa ka bedeli lahayd kan haddaad ku dari lahayd sidaasaa loo sameeyeyba daabacaddii labaad tii saddexaad tii afraad waxbaa mar walba lagu kordhiya marka insha allahu mawduucyo muhiimaha jiro oon isleeyahay ku dar daabacadda labaad ma aanan samayn weli laakiin bilowgii tijaabo wuxuu ahaa dad badan ay wax badan ka faa'iideen aniga nin waxaa qadar ku arkay nin culummo ah oo khiyaar ahoo wuxuu yidhi intaan guursaday
ayaan si qaab wax laga maro iyo si wax loo sameeyo iyo kulli intaan garan waayaan waa iska furay gabadhii buuggaana helay waan akhristay si fiican aan u fahmay gabar kale aan guursaday kaalay arag nolosheedu sida ku socoto maasha Allah waa buugga waa ku dagay marka waaba hagay buugga marka waxbuu iftiimiyey absal waa erga raadinay waa iftiiminta waxbuu iftiimiyey marka in lagu sii socdo oo la sii kordhiyo oo mawaadiicda cusub gaar ahaan waqtigiisii waa wax la dhaafay dhowr iyo 10 sano wax badan adduunku waa sii socdaa alaga buugga naftiisa weli waa nool yahay marka buuggan waa ma qayarmo sax maxaa kugu dhaliyay qoritaanka buugga aakhirul su'aal yani buugga hadee waxaan isleeyahay macluumaad Soomaalidu u baahan tahay oo markaas aysan haysan bal gaarsii sidaan anugu u faa'iideysto qeyrkeena inuu u faa'iideysto waa ka muhiimadda macluumaad Soomaalida aysan aqoon oo carabina ay ku akhrisin kareen inaad luqadoodii ugu gudbisaa waa jazaaka Allahu khayran qaybta labaad aynu galayno daawadayaal maanta barnaamijka waxaa martay inoogu ah Sabriya Macalin Muuse inooga yimid Mareykanka waa badan yahay USA Minnesota inooga yimid aad buu u mahadsan yahay maanta halkan u yimid in ummadda Soomaaliyeed wax u kordhiyo uuna u ifiyo hadda sida uu sheegay qaybta labaad ka waran barbaarinta ubadka yani waa mowduuc qudisa aad u weyn aan dad badan ay aad u xiiseynayaan aynu garanayno yani ereyga barbaarinta anaga Soomaaliya halka uu naga joogay iyo ubadka saynu barbaarin jirnay la ka hor asiga ku soo dhaweynaa xogaa yar hor dhacnaan siiyo ka waran buugga barbaarinta ubadka sida wax yar hor dhacnaga sii bar insha Allah waa mahadsantahay professor Wasuge buugga barbaarinta ubadka horta waa natiijo dabiici ah oo mar haddii la isguursaday caruur baa imanaysa ujeedooyinka guurka waxaa ugu muhiimsan in ubadku uu ku dhasho ubadkaas oo danta laga leeyahay ay tahay inuu hadduu kuu saqiiran aakhira kuu shafeeco hadduu kaa haro uu kuu soo duceeyo oo sadaqa kuu bixiyo intuu nool yahayna uu maaragtay garab kuu noqdo markaad gabowdo gaar ahaan marka ubadkii dhalanaya waa loo baahday marka in ayagana laga hadlo ubadka barbaarintiisu waxay ka bilaabataa hooyadiis marka loo xulaayo iyo aabihiis hooyadiis iyo aabihiis marka loo xulaayo ayay ka bilaabataa Umar ibn Khattab wiilkii weydiiyay oo yiri wiilku aabihiis xuquuq ma ku leeyahay wuxuu ku yiri 3 waxyaabood uu xaq ugu leeyahay inuu hooyo fiican u xulo inuu magac fiican u bixiyo iyo inuu diinta wax ka baro uu ku cibaadeysto hooyaday ka bilaabataa marka xulistooda iyo aabaha hum leen hooyo kaliya in la xulo aabaha nin akhlaaq leh diin leh maaragtay waa in loo xulaa marka barbaarinta ubadka fikraddu waxay ka timid mar haddii raaxadii guurka laga soo sheekeeyey bal in la daba dhigo marxaladii labaad oo wixii meesha ka dhasha wixii meeshaas ka dhasha sidii loo barbaarin lahaa ku soco marka buug waa buug aad uga ballaaran kii hore qodobo kala duwan baa halkan ku qorto barbaarinta diinta iyo akhlaaqda barbaarinta diinta akhristaada kombi baad haystaa malayna waa la soo bixi kartaa ka waran marka barbaarinta halkay ka bilaabataa barbaarintu sidaan sheegayba hooyadii iyo aabihii xulkoodii ka bilaabataa waxa kuugu xiga ilmihii calooshay galeen waa la isguursaday calooshay galeen caloosha markay galaan hooyadii iyo dhallaanka in la nafaqeeyo caafimaadkooda la ilaaliyo intuu caloosha ku jiro marxaladihii kala duwanaay uu marayay ilaa uu ka dhasho markuu dhashay muxuu u baahan yahay marka barbaarintii muhiimka ahayd oo ilmaha halkaas ka bilaabataa waa in ilmuhu markuu soo baxaba dhegta midiga looga adimo dhegta bidixo looga aqimo wax macaan inta loo calaaliyo afka loogu tiro maxaa la yidhaahdaa intaas kadib horta adinka iyo aqamku Soomaalida badankoodu ma yaqaanaan gaar ahaan horta miyiga maba laga yaqaanaba wiilka markuu dhasho ama gabadha ay dhalato miyiga xabadaha loo ridaa waa loo alalaasaa waa maasha Allah hambalya dhacay marka laakiin shaydaana wuxuu sugaya 9 bilood cunugan intuu caloosh ku jiray wuxuu islaam markuu dibadda u soo baxaba kala gaaray waxaagii ku akhri marka la aqimo oo la adimo waa ka cararaa meeshaas marka dhagihiisu inay maqlaan shahaadada wixii ugu horeeyay maqlaan afka loogu tiro wax macaan si gowsihiisu ay maaragtay daamankiisu u adkaadaan wuxuu xaq u leeyahay in madaxa laga xiiro in magac fiican loo bixiyo magacyo waxaa jira diintu ay sheegayso caruurta in loo bixiyo in maxaa la yiraahdaa loo wanqalo
oo waxyaabahaas oo dhan waa soo intuu yar dhaweynta yahay waa soo dhaweyntiisii dhaweynta waa taas walaa soo dhaweynta way barbaarinta waxay ka bilaabataa marka cunuga markii jirkiisii iyo wixiisii iyo laga hadlayo qodobbaa meeshaan jiray marka barbaarinta kow marka waxay ka bilaabanaysaa caadiga ah oo asaga la barbaarinayo in diin iyo akhlaaq lagu horta loogu afbilaabo shahaadadii waa ka xalaashii iyo xaaraantii la kala baro sax cibaadooyinkii la baro siiradii nabiga la baro alla ka cabsi lagu barbaariyo maxaa la yidhaha laga ilaaliyo akhlaaq xumeeyayaasha waxyaabaha la yidhaahdo oo ay ka mid tahay beentu tuuganimadu ka mid tahay caaydu ka mid tahay xantu ka mid tahay waxaasoo dhan in barbaarinta diinta iyo akhlaaqda la yidhahda kabacdii barbaarinta jirka iyo caqliga jirkiisi nafaqo fiican in la geliyo qaabkii waxyaabihii ugu fiicnaayo oo la siin lahaa raashin ahaan in sports iyo jirkii loo dhiso oo jirkii maaragtay uu noqdo qof jirkiisu fayow yahay caqligiisa in maaragtay la barbaariyo oo la kobciyo waxaa ka mid a barbaarintii ayadana bulshada tii qalabka xataa jirka marka jirka qalab isboos ku cayaaro sportskii iyo kulli barbaarinta jirka waa loo baahan yahay murqihiisa ku dhismo bulshada asagana baabka ugu dheer waa baabka barbaarinta bulshada waa tahay baabkaas wuxuu u kala baxaa dhowr qaybood waa tahay qaybta koowaad in la baro waxyaabo muhiima oo ay ka mid tahay inuu dhowrsanaado waa kaasa walaaltinimadii furistii naxariistii dhiiranaantii qofkii ku xadgudbo siduu ku cafin lahaa waxaasoo dhan in la baro geesinimada ugu weyn adduunka waa tan ah qofkii ku xumeeya inaad iska cafiso adoo ka argoosan kara in beentii laga ilaaliyo naxariistii in la baro huristii naftiisa inuu u huri karo oo uusan dhihin it is me sida meelaha reer galbeed ka jirta war walaalkaa kaa yar sii this is mine marka in la baro waxa uu leeyahay uu jecel yahay inuu dadka kale uu la wadaagi karo oo uu huri karo walaaltinimada inuu xaq dhowro inuu qof dhowrsan yahay qayb kale waxaa jirta xuquuqda dadka kale inuu xaq dhowro in la baro waxay ka bilaabataa waalidka asaga xuquuqdiisa waa laga yimid waalidka ixtiraamkiisa in la baro baxar aayado iyo axaadiid iyo wax walba oo ku saabsan waa ku wada qoran yihiin waa la wada xusay waalidkii dariskii maxaa la yidhahdaa dadkii ka waaweynaay macalinkii in la baro inuu xaq dhowro maxaa la yidhaahdaa qaraabadii kulli siduu ku xiriirin lahaa qofka weyn waxaasoo dhan buugga waa ku xusan yihiin qaybta ugu dambeysa oo barbaarinta waxa waaye anshixii guud ee bulshada yuhuuddu waxay dhihi jireen sidaan soo sheegnayba muslimiinta waxay dhihi jireen war nabigiinu sal ly slam xitaa musqushi sida loo galo waa idin baray wax kasta waa baray ummadda islaamka in la baro horta sidii wax loo cuni laha loo cabi lahaa waa wiilkii nabiga sal ly slam wax la cunaay oo gacantiisu hadba meel kuoodeysa wuxuu yihi wiil yahow bisinka ku bilow maxaa la yidhahdaa midigtaada ku cun dhinac ku soo xigana wax ka cun sidii wax loo cabistii iyo cunistii la baro in la baro salaanta dadka sidii loo salaami lahaa in la baro idan qaadashada markii la fariisanayo markii la baxayo markii la soo gelayo in la baro fadhigii dad meel fadhiya markuu u yimaado in la baro siduu u hadli lahaa siduu ku bilaabi lahaa siduu dadka kale u ixtiraami lahaa markay hadal socdo qofka weyn markuu hadlayo waalidkiisa iyo dad markay hadlayaan kulli in la baro kaftanka nabigu waa kaftami jiray laakiin weligiisna been ma sheegin qof loogu xadgudbayan kuma kaftamin in la baro fiiriska dadka cawradooda iyo waxaan loo baahnayn iyo meelaan loo baahnayn inuusan fiirin in la baro hambalyeynta in la baro wadamada reer galbeedka waxyaabo waxay yaqaanaan 3 waxyaabood oo mucjizooyin ah oo qofku maaragtay hadduu barto aad muhiim u ah waxaa ka mid a raalli ahaw sorry waxaa ka mid a please kuma jeedin waa excuse me 3 waxyaabood oo la yaaba aniga waa excuse me iyo please iyo sorry qofka waxay gelinaysaa naxariis markaa ku tiraahdo soomaalida waalidku xitaa markuu ilmaha canaanto ay u ogaado cunuga inaysan gardarnayn xitaa sorry ma dhihi karo raalli ahaw waa kugu khaldamay raalli ahaw waa isla weyn yahay inuu cunugiisa raalli ahaw yiraahdo asagana lama soo barin asagina waxba baray marka waxaa loo baahan yahay in la baro bukaan booqashadii qofkii xanuunsan booqashadu aaday u anfacaysaa in la baro maxaa la yidhaha tacsiyeyntii in la baro xitaa markuu hindhiso ama halaaqoodo wuxuu dhihi lahaa iyo siduu waa wixii oo dhan in la baro wadada dhagaxa yaala ka waran qashinka wax yaalo laga qaadayo anagu waxaas waana la bari jiray iskoolka wax xasuusta dhagax marka artika leexi islaan waa yeela markaad aragtid gacanteeda qabo jidka goysi horta Soomaalidu waa dad fitra ahaan dad fiican waay laakiin waxaa ka maqmaqan
hadda baadiyaha oo kale dadku waxay jecel yihiin ninku wuxuu jecel yahay wiilkiisu inuu geesi yahay inuu deeqsi yahay inuu aftahan yahay saddexdaas uu dareemaya saddexdaas sifa ugu geel muhiimsan jira wax kale ma raba asiga intaas uu raba saddexdaas ugu muhiimsan magaaladii waxay rabaan cunugu inuu dugsina aado iskuulna aado jumcadan ay u fasaxaan inuu banooni soo ciyaaro intaas waa kaliya barbaarin kale ma leh barbaarintan aan ka hadlaynaa waa barbaarin ay waajib ku tahay qoyska Soomaaliya ilmaha wadada barbaarisa hooyadu raashinaysiisaa aabuhuna mushaaro keenaa wax kale oo shaqo ku leeyihiin malaha wadada ayaa barbaarisa Soomaaliya marka iskoolkana waxaan ka wadaa wadadii iskoolkii iyo dugsiga quraanka macallinka wasaaradda waxbarashadii barbaarinta waa tahay laakiin waxaa la rabaa qoyskii inuu qaybtiisa ka qaato waxaan dhan ka hadlaynaa waa tii qoyska aabaha iyo hooyadu ay laakiin aabaha hooyada hadday aqoonin ka warre qodobada meesha hadda carabtu waxay tiraa faaqidu shay laa yucti qofa asaga wixii ba haysan hadda ma siin karo marka kulligan saas hadda ku soo wada barbaarnaad sheegayda hadda laakiin qodobo badan naga maqano oo loo baahan yahay buugaan markii hadda yani tarjumadan aad samayso la qoro yani waxyaalo badan waxaa jira dadka aysan ka warqabin laakiin isticmaalaan oo meelaha ku jiro hadda cudur daarka kale بليس iyo sorry iyo thank you wala Soomaaliya dhulka iska weyn qofna kuma istaagay qofna ku dhacay waa iska socotaa waa tahay wax yar baa noo haray ka waran marka ay guud ahaan markaad isbarbardhig samayso xagga barbaarinta yani Soomaaliya iyo qurbaha horta aniga xoog ma saarin dadka qurbaha ku nool waxaan ugu talagalay buugan wadan nabad qaba oo nool iyo ummad degan oo iskuulkii iyo dugsiga quraanka iyo gurigii iyo bulshadii iyo dhalinyaradii ayaan ugu talagalay okay that's what ummad soo qaxday professor Waasuge adigaaba meesha ilmo ku barbaariyaba oo buugaagtaada iyo CD-yadaada iyo sidaad maaragtay adigaaba haayaba hadda oo arintaas adigaan ku daynay taa waa ka yeelnay ka waran marka ma qabtaa marka hadda waxaan oo kale man waxa la dhihi jiray manhajka waxa ku jira waagi anaga aynu dhiga jirnay iskoolaadka waxa xasuusnaa waxa la dhihi jiray educazione civica aftalyaaniga iskuul waa civic waxa waa civic education civic waa yani waa barbaarin oo kale ahayd oo la isbari jiray oo yani ina qashinka wadada ka qaado barbaarinta bulshada waa barbaarinta bulshada waa marka maxaad kuwa kula talinayd aakhirul kariima waqtiga waa naga dhamaaday wasaaradda waxbarashada barbaarinta maxaad kula talinayd adigoo tixgelinaya buugan barbaarinta ubadka ma soo jeedin lahayd in yani manhajka lagu daro wax buugan oo kale waxyaabaha ku qoran oo kale si yani barbaarinta ubadka Soomaaliya wajh cusub u yeesho qaab kasto oo dadweynaha xataa see loo fidin karaa horta intaan taas u galin wax yar aan iraahdo barbaarintii aan ka soo hadalnay qaabkii loo gaarsiin lahaa ayaa horta loo baahan yahay tabaha barbaarinta waa baabka ugu dambeeya ilmaha qaar waxa lagu barbaariyaa ku dayasho adaa u falay wixii adaa u sameynaa eegana waa kugu dayanaya tabta la isu barbaariyo lafteeda barbaarin oo waxaa jirta baris waxa inaad barto marna inuu kugu daydo marna inaad adigu barto mar inaad maxaa la yiraahdaa aad kormeerto ood ka warqabto ood la socoto mar inaad waaniso mar inaad u digto waxaan hadaa samayso waxaasaa kugu dhaca mar inaad waaniso qaabab kala duwanaa jira oo laysu barbaariyo macluumaadkan qaabkii loo gaarsiin lahaa ayaa loo baahan yahay ciqaabaha waa ku qoran yihiin buugga ciqaabku barbaarin qaybaha ugu dambeysa waanadii baristii digniintii ciqaabku barbaaris waa inaad u sheegtaa diinta haddii laga baxo nafta haddii la gooyo tuuganimadii qadafkii zinadii dhul fasaahadintii khamra cabistii daroogadii wixii waxaasoo dhan iyo ciqaabaha ka dhalan karo ilaahay ugu talagalay markaan usoo laabto dhinaca wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta waxaan u malaynaa buuggan horta wuxuu anfacaa waalidka aad iyo aad u anfacaa marka sidii lagu gaarsiin lahaa ummadda waxa ku qoran oo dhanina waa wax saxiix ah oo raadraac leh tafaftir raadraac xadiid markaan soo qaato 99 waa saxiix marka in la publish gareeyo oo la kordhiyo oo la badiyo oo ummadda Soomaaliyeed la wada gaarsiiyo oo kharash la geliyo aad iyo aad loogu baahan yahay jazakallahu khayran maanta barnaamijka waxaa marti inoogu ahay aqoonyahan Sabriya Macalin Muuse America USA nooga yimid
aan maanta kaga faa'iidaysana halkan labada buug uu kusoo bandhigay yani aynu rajaynayna inaad yani buugga ugu dambeeya weli aad labada kan ugu dambeeya waa asaaska weeyaan barbaarinta in horta aad yani la faafiyo la qoro la badiyo idinkana aad ka faa'iidaysataan oo buugga iibsataan hadda heshaan jazaaka allahu khayran la aad mahadsan tahay barnaamij kale kugu soo dhaweyn doona halkan markaad kusoo noqoto way arag inta baan kusoo afjarayaa waxaanu rajaynayaa farsamada waxaas kale isu garabay tan intaan kulmi doono barnaamij kale ama barnaamij kan oo kale ama kaba wanaagsan waxaan leeyahay sida nabadgeliyo aad iyo aad badan mahadsan tahay. السلام عليكم.